نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد waxaynu insha allahu tacaala ka hadli doonaa mawduuca ciwaankiisu yahay almacaasi wa aharuhaa fi lfardi walmujtamac. macaasida ama dunuubta raadka xune ay ku leedahay bulshada ama afraadda basharka bani aadamka ah baynu insha allahu kelimaad ka odhan doonaa. waxaynu kulligeema rumaysannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ummaddan ummatu muxamed ummad ilaahay u nimceeyey oo alla subxaanahu wa tacaala wax badan oo khasaa'isa ama wax badan oo khayraada uu siiyey oo ay ka mid tahay risaaladii lagu khatimay rusushii la soo dirayey ilaahay inuu siiyey oo nebigii loo soo diray ummadda tan uu yahay ummadda nebigu u khayrka badnaa oo kitaabka loo soo dejiyey uu yahay kitaabada ugu fiicnaa ee koobay kutubta kale oo dhan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda meesha laga soo saaray nebiyullaahi muxamed ee qiblada ummadda u ah inay tahay meesha adduunka ugu fiican. wuxuuna kaloo alla u ballanqaaday ummaddu markay diinteeda u hiiliso oo ay ku dhaqantana ilaahay subxaanahu wa tacaala hiil iyo nasri iyo cize iyo sharaf ayuu ballanqaaday. waana ummad ilaahay ugu talagalay inay adduunka hoggaamiso markii ay ku dhaqmaysay diinteeda oo ay sidii la rabay u noolayd. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cizeeyey diinta oo qiimo ayay ku yeelatay, laakiin burbur badan baa dhacay oo caalamka maanta markaad eegto dee sidii la rabay lama aha oo muslimiintu dacfi badan baa jira oo ama xagga maxaan ku dhahdaa diinta iyo ku dhaqankeeda haato xagga maxaan ku dhahdaa cize iyo sharaf iyo qiimo iyo inay maamuus iyo sharaf yeelata ha ahaato xagga midnimada oo aad moodo tafaruq iyo kala tagsanaan iyo kala qaybsanaan xoog leh ummadda islaamka inay haysato dhibaatooyin fara badan oo runtii laga wada dheregsan yahay baa haysta. arrimahaasoo dhan maxaa sababaya? waxaynu odhan karnaa waxa u sabab ah oo aan khilaaf lahayn inay tahay ummaddu waxay kasbatay oo macaasida iyo dunuubta iyo xumaha ay ku dhacaysa ah. waayo ilaahay sunnaha uu jideeyey waxaa ka mid ah ummaddu markay diinteeda ku toosan tahay oo wixii ilaahay ka reebay ay ka tegayso waxay tahay ummad sharaf iyo ciise ku nool bay noqonaysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hiiliyey noqonaysaa. haddii ay ka leexatana waxaa ku dhacaya wax haddaba haysta ayaa ku dhacaya. waa sunnaha ilaahay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. ilaahay qolama dooriyo oo hadday xaalad xun ku jiraan xaalad wanaagsan loo saari maayo ilaa iyagu ay markaa isbeddelka keenaan. hadday xaalad fiican ku jiraan oo toosan yihiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rari maayo xaaladdaa fiican ilaa iyagu ay xumaadaan. aayadda macnaheedu saasay u socotaa. sidaa darteed baa qur-aanka shawaahid fara badan oo macnaha ku tusinaya allah kaga warramaya wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir. waxa idinku dhacayaa waa waxa aad kasbateen wax fara badan alle subxaana wa tacala ugu dhaafaa. ibnuqayim raxmatullaahi calayh kitaabkiisa aad u qiimaha badan oo leeyahay addaa wadawaa ama aljawaab alkaafi liman sa'ala can iddawaa'i shaafi magacaana wuu leeyahay. wuxuu tilmaamay markuu ka hadlayay mawduucan oo mawduuca runtii kitaabkaasaa loogu noqonaya si aad uga hadlay. wuxuu yidhi markuu ka hadlayey waxyaabaha ummadaha halaaga dunuubtu iyo macaasidu waxay ummadda ku samayso. dunuubtu gaalnimay ka bilaabataa, wixii ka hooseeyaana ee ilaahay lagu khilaafaa dembi baa la yidhaahdaa. marka wuxuu yidhi ina adunuuba waalmacaasi taduru walaa shakka ana dararaha fi lquluubi ka darari الsumuumi fi اlabdaan. wuxuu yidhi macaasidu waxyeello weeyaan oo sida
qulubta waxay wax u yeelaysaa buu yidhi sida suntu ay jidhka wax u yeesho. qofku hadduu sun cabo dee waxa weeye naftu waa kaga baxaysaa. macaasiduna qalbiga sidaa suntu jidhka wax u yeelayso ay macaasida iyo dunuubta iyo xumuhuna ay qalbiga wax u yeelaan. wahal fi dunyaa sharun wadaa'un ilaa wasababuhu dunuub walmacaasi. adduunkaba shar iyo cudur miyuu ka jira aan dunuub iyo macaasi ahayn buu yidhi. markaasuu wuxuu taxayaa ummadihii caalamka soo maray iyo wixii khayr ay ka baxeen iyo wixii ku dhacay sababtoodu inay ahayd dunuubta. markaasuu le yaa ka saaray, maxaa sabab u ahaa oo xaawo iyo aadam jannada ka soo saaray? waa dembigay galeen, khilaafka ilaahi subxaana wa tacaala amarku amray ay khilaafeen. maxaa keenay in ibliis oo jannada ku jira oo hadda luufluufo oo nacdal iyo ilaahay maarata inkaar ku dhacaan? waa amarkii ilaahi subxaana wa taala macaasiduu la yimi iyo xumuu galay. maxaa keenay in nimankii la odhan jiray reer nuux, ummaddii nuux ilaahay u soo diray, in duufaan lagu qarqiyey biyo ilaa biyo ay gaadheen samaawaad buuraha korkooda ay gaadheen? sababtu maxay tahay? waa dunuubtii macaasida. maxaa keenay reer caad in maxaan ku dhahdaa dabaylo inta ilaahay ku furo ilaahay subxaana wa tacaala u baaba'ashay oo dhulka lagu daadiyey oo qur-aanku alla uu leeyay kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya, dogobiyo geetimireed dogobyadoodii kale oo daatay, dad dhaadheer xoog badan bay ahaayeen. maxaa sababay? waa macaasida iyo dunuubta iyo xumahay galeen. maxaa keenay reer amuud in lagu dhawaaqo oo mar keliya la dul keeno sayxa waaxida, inta lagu dhawaaqo meel ku ay baabah noqdeen oo dhammaadeen? waa dunuubtii macaasida. maxaa keenay reer luud in meeshay deganaayeen inta la fujiyo oo samaawaadka loola baxo, xaga kale loo baqayo rogo, haddana dhagax lagu soo daadiyo? maxaa keenay oo sababta keentay maxay tahay? waa dunuubta iyo macaasida. maxaa keenay reer shucayb in la dul keeno maxaan ku dhahay daruuro maaragtay cadaab ah oo dabeete lagu sii daayo? maxaa sababto ay tahay? waxa weeyaan waa waxay galeen oo xumaha iyo dunuubta ay samaynayeen. saasuu ku buuday qaaruun iyo maalkiisii iyo isagii. maxaa sababay in dhulka lala gooyo oo markaa la waayay meel ka baxay? waxa weeyaan sababtu waa dunuubta iyo macaasida ay galeen oo gaalnimaduba haws horayso. fakullan akhadnaa bidanbih faminhum man arsalna calayhi xaasiban waminhum man akhadathu sayxa waminhum man khasafna bihi alard waminhum man agraqna wma kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun. marka wuxuu leeyahy sheekhu kitaabkiisa maruu ka hadlayay dhibaatada macaasida iyo dunuubtu ay u leedahay bani aadamka, wuxuu wa min alaahaari alqabiixa almadmuuma wاlmudirati biاlqalbi wاlbadani fi اdunya wاlaakhira maa laa yaclamuhu ila allah. wuxuu yidhi dhibaatada ama raadka xunay dembigu reebayo oo qofka bani aadamka qalbigiisa iyo jidhkiisa uu ku reebayo, adduun iyo aakhiraba ilaahay mooye cid kaloo suuraysan karta ma jirta buuri. allah mooyaane wax garan karaa ma jiro dhibaatada dunuubta iyo macaasida ummadda ay ku hayso. markaasuu soo taxaya waxa uu bilaabay oo yidhi kow waxaa ka mid ah maalan waxyaabaha aahaarta xun iyo raadka ay macaasidu reebayso xirmaanu lcilmi, qofka in cilmiga laga xarimo oo cilmigii uu baran lahaa iyo diintuu fahmi lahaa macaasida ayaa dabar ah oo ka xayiraysa. oo waxay yidhahdeen cilmigu waa nuur ilaahay qalbiga qofka ku tuurayo. macaasiduna waxa weeyaan waa mugdigii bakhtiinaya nuurka. marka waxa weeyaan kullamaa qofku uu macaasi ku dhaco oo dunuub sameeyo cilmigii waa ka baaba'aya. oo waxaad arkaysaa dad badan oo qur-aanka xifdisanaa markay dunuub iyo macaasi walaaqdeen waxba waa soo rogan waayeen. oo kuwa ducaada oo khayrka sheegi jiray oo manaabirta mikrofoonnada aad uga shaqayn jiray, wax kale markay ku mashquuleen oo macaasi ay dabartay bay soo rogan waayeen, muxaadaro yar jeediyaan ama kitaab yar akhriyaan waaba ku salaaxilayiin. bala kala haysataa oo macaasida baa ku dheggan. waa wax waaqicoo jira. imaamu shaafici raximah اllahu tacaala markii u yimi imaam maalik oo sheekhiisii ah isagoo markaa dhallinyaro ah oo uu soo hor fadhiistay oo uu la yaabay xifdigiisa iyo fahmadiisa iyo maaragtay aqoontiisa aad u sarraysa, ayuu la yaabo ku dhaygay. markaasa wuxuu ku yidhi innii ara allaha qad alqaa fii qalbika nuuran falaa tudfi'hu bidulmati اlmacsiya. imaamu shaafici waxaa ii muuqata buu yidhi in ilaahay qalbigaaga nuur ku tuuray nuur. marka waa xifdiga uu markiiba xifdiyayo. oo kitaabka muwaطa maalik buu soo akhriyo korkan ka hayaa buu kitaabkanba. marka xifdigiisii markuu arkay iyo fahmadiisii
iyo sida markaa wax u garanayo ayaa wuxuu yidhi waxaan arkaa in ilaahay qalbigaaga nuur ku tuuray nuurkaa macaasi ha ku bakhtiinin oo naftaada macaasida iyo dunuubta ka ilaali saa darteed ba markii waxoogaa uu qoonsaday xifdigiisii imaamu shaafici raximah allahu tacaala waa kii sheekhiisii wakiic baan u sheegtay buu yidhi shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki almacaasi waahbaranii ina alcilma nuurun wa nuur ullaahi laa yu'taahu licaasi markaan cawday oo xifdigiiga waxaysmay wuxuu yidhi maaragtay cilmigu waa nuur waxa weeye nuurkana dee waxa weeyaan nuurkaas ilahay wuxuu siiya markaa dee qofkii alla ka yaaba waxa weeyaan qof caasiya lama siiyo markaa cisyaanka iyo dunuubta iska ilaali macnaha hadalkaasoo kale ayuu socdaa ibnu taymiya raxmatullahi caleyh mujalladka 14 safxadda 150 buu mawduuca kaga hadlay oo wuxuu leeyahay wallahu subxaanahu jacala mima yucaaqibu bihi الnaasa cala الdunuubi salba اlhuda wاlcilmi الnaafic qaala tacaala waqaaluu quluubuna gulfun bal طabaca allahu calayha bikufrihim allah subxaanahu wa tacaala addoommaha wuxuu ku ciqaabaa buu yidhi markay dunuubta iyo macaasida la yimaadaan salba alhuda wاlcilmi الnaafic in hanuunka laga siibo iyo cilmigii naafica ahaa markay macaasi dhex galaan baa cilmigii naafica ahaa iyo waxaa laga siibayaa aqoontii baa laga siibayaa markaasuu aayaad badanoo taasi ka mid tahay buu keenaya oo markii ay yidhaahdeen kuwii gaalada qalbigaygu waa foorana waa daboolan yahay ayaa waxa bal طabaca allahu calayha bikufrihim ilaahay baa daboolay bisababi kufrihim gaalnimada oo macaasida xuma ay sameeyeen oo gaalnimadu ka mid tahay waa sababteeda ayaa qalbiga lagu malaasay marka dembiga ayaa wuxuu keenaya qalbi madoobaad saynu u tegi doono qodobada marka uu keeno dunuubtu aahaartay reebto ضحاك بن مزاحم wuxuu leeyahay ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه وذلك بأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ونسيان القرآن من أعظم المصائب wuxuu yidhi ma jira buu yidhi qof qur-aanka intuu xifdiyey ilaa waxaa keenaya macaasi unbaa sababteeda ay noqonaysaa buu yidhi wuxuuna ku culeeyday ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiiba wax kastoo idinku dhacaa fabimaa kasabat aydiikum naftiin waxay kasbatay weeye qur-aan la ilaawana masiibo ka weyn ma jirta buu yidhi qur-aan la ilaawo masiibo ka weyn ma jirto marka waxa weeyaan waxaa sababaya buu leeyahay dunuubta iyo macaasida la samaynayo waxaa ka mid a waxyaabaha raadka xun ay macaasidu reebayso xirmaanu risqiga qofka in laga xarimo oo lagu ceedhiyo ama lagu yareeyo ama barakadaba laga qaado oo alla kayaabka iyo cabsida iyo taqwadu waxay qofka u soo jiidaysaa inuu risq wanaagsan ilaahay siiyo wax xalaala oo fiican oo ku baahi gooyo oo ku qanco marba qofku xoolo badan haysta qanaacas aanu haysana yaabsan yahay oo aan waxba ilaahay u barakayn marka taqwadu waxay keentaa inay soo jiida risqa laakiin macaasida iyo dunuubtu xirmaan bay keenaysaa in la waado oo su'aal baa la isweydiin karaa nin baa wuxuu odhan karaa oo dadkii gaalada ahaa iyo munaafiqiin kuwaasi oo sawtarada xoolo ay ka dirgeen maaha dal kasta lacagta iyo doolarka iyo maaragtay ay duulayso maxaa iyaga ku dhacay markaa rasuulka ka jawaabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyay idaa ra'ayta allaha yucطi alcabda min addunya calaa macaasihi maa yuxib فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مسلمون فإذا هم مبلسون marka wuxuu leeyahay rasuulku haddaad aragta addoon ilaahay nicmo siinayo isaguna macaasida ku jira xumay buu dhex dabaaranayaa waxana waa ku socdaana waa la siinaya waxaad ogaataa arrintaasi waa istidraaj waa nooc sabaasaba waa hoodoo ku dhimo way macnaheedu oo wax u taraya maaha waayo aayaddaas markaa akhriyado alla uu ka warramay subxaanahu wa tacaala falammaa nasuu maa dukiruu bihi markay ka tageen wixii lagu waaniyey ee diintaha ay ka tageen oo ay xaqii ka leexdeen fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markaasaan waxaan u furray albawaab walba maal fara badan caafimaad fara badan raaxa iyo nasasho badan amni fara badan waxbaasaa loogu furay soo ma aragtid dee hooda ku dhiba soo maaha markaasaa markay wixiisaa u dhex jiraan oo barwaaqaysan yihiin xataa idaa farixuu bimaa u tahay ku farxeen oo kibir iyo rayrayr ay ka qaadeen akhadnaahum bagta faidaa hum mublisuun
كاسانو قبنا مركلية القبنية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ومر هدي لها قبطة ميل بيتية خلاص ولا ماطي لا يقول وحي ودن قوسته وحبق على وجه لبابي ولا هلاك وهي بشوف على قدير يجي لو تخلص marka waxa weeyaan macnaheedu ma aha inay tahay jacayl wixii la siiyay waa waxooda ku dhimaa rizq sax ma oo fiican ma away marka waxa ku filan qofka inuu haysto wax badan bayaan haysan wax kafaafkiisa ah oo fa inna ma qalla wa kafa khayrun mimma kathara wa alha hadithku wax yar aan badnayn balaakiin ku filan oo cid kale u baahnayn naftaada kifaayadeedii ah ayaa waxay ka khayr badan tahay wax fara badan oo qofka mashquuliya oo maanta oo xisaabintooda iyo raadintooda oo marka qaar kood wuxuu keenayaa xoolaha faraha badan ee qofku ku mashquulo hammun laazim hammi hadiyo goor maaragtay mashquul oo qalbigiisu aanu joogin buu keenayaa wa ta'abun daa'im daal joogta buu keenayaa dabagal iyo xaggay ay ka baxday hay ka dhacday inta lagu ordaya wa hasratullah tanqadi iyo waxa la qoomamo aan kala goolahayn xoolihii lume badda intaas ku halaagtay inta waa la dhacay inta lama hayo marban xidin baa naftu uga baxaysaa حولي فرابنا ولايني سمعت مركب عويان لقما يدركوه وأدونك حديث ما وحوها لو كان لابن آدم واديان من ماء لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب حديث كاس البخاري مسلم كسبية بني آدم قد دول لبوادي لو تشيحوا ما رأوا هيشتوا مثل دحات وطلبية aloosh tanama buuxiyaan ciidda mooyaan wax kale marka godka lagu rido halkaas uu qaraaray inta ka horeysa waa xoolado wax u raadcaynaya Soomaaliya marka waxa weeyaan qofku marka rizqa way xarimaysaa marka macaasidu way yaraynaysaa barakada ka qaadaysaa way xumaynaysaa oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu ku leeyahay isagoo tilmaamaya qiimaha marka wax yaro qanaaco leh oo wanaagsan marka haysato waxba inaan ka maqnayn من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ورسول كوري حديث كاس وعورنا يا إمام الترمذي وأنا حديث حسنة وحولي رسولكم قفكي وابريستي سوى نبتقلي قضاء في سربه يعني نفتي سيئل كيسي نبتقلي سوى كتشرة مركو وابريستو عافمات نقبا وان حاون هاينين maalintaana quudkeedii haysta waaga ku bari gabar ku dhacana masaariftii haysta ka waxaad moodaa adduunka hore loo soo jamciyay iyadoo dhameystiran adduunka gacanta ku haysa waxa ka maqna Soomaaliyeed waade salafka wuxuu arkay adduunyadan wax lagu raagaya ma aho waa kii waa xadiidku ila amsayta fala tantadir as-sabah wa ila asbahta fala tantadir al-masa hadaad galabaysato waagu inuu ku bariyaha sugin haddii waa ku bariyana galabtu inay ku dhacayso galabaad gaari doontana ha filanin waysa ku jirtaa saad badeleen mar baa lagu helayaa gebiga marka gacan waxa kugu ma jiro marka hadaad caafimaad ku soo kacdo maalinta quudkii maalintaan haysato wax xanuun iyo dhibaato kale aan ku haysan boqor yar baatay adduunka baad haysta saas rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka xoolo badan oo la ururiyaa diinti kama mid ah oo ma wax ma aragtay dee la xafinayo wuxuu walastu ara as-sa'adata jam'a maalin ولكن التقي هو سعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد ما حول بدن لوري سعادته سعاده على كيابك وعبسشده وبقدينتا والله لو xidhnaado adoonnimo la muujiyo wixii laga helo wixii laga reebad ka tagto taasa saacada iyo liibaan iyo wanaag taasa waxa kamida waxyaabaha macaasidu ay keenayso ta'siiru al-umuri 'ala al-'aasi qofkan caasiga ee rabbigii khilaafsan ee rabbigii caasiyay umuuraha lagu adkeeyaa markaasuu meeshu u jeesta waa xilmaysa albaabku garaacaba waa xilay illa waa in meel laga haysto in ka habaab qabayr kala meel laga haysta marka waxay isku hagaagi maayaan baynama alla kayaabkiya taqwadu ay soo jiidayso faraj waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه qofkii ilaahay ka cabsada ilaahay wuxuu yeelay faraj oo waxa dhibaatada haysata oo taqwadu waxay keenaysaa damaan u tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonka kan oo arimiisa maamulo bi taqwa ilaahi naja man naja wa faaza wa saara ila ma raja
ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا آياتي مركا وكل نظمنا يعني عليه مركا تقوى إلهي وتلقوا بدبادي ونقول لي باري وسيد إلهي فرأي ومن يتق الله يجعل له مخرجا مركا عوي أضونكو ابن القيم وحورن جري قفكو هدو حالكي صدريمو إنو ربي عاسيي والبابدا كحلا إيا وحن هايستا إن عسيانك حقي سايتاي وهوشن كو أدكاتي إنay tahay sababta dunuubta حتى يعلم من أين أتي إلى وقاد حقين لوغا يمي ووقوعه على السبب الموجب لذلك يوحن sababta ku dhacday waajibsatay in meel kasta laga soo cayiro arinta haduu ogaado qofku waxay ka mid tahay mimma yuqawi iimaana waxay iimaankiisa xujiya waduu qofku isdareemo inuu qaldan yahay oo maxaan kula xogta la baxo meel baa laga haystaa diinta Ilaahay dayacday cibaado xumo macaasad ku jirta waxan keentay markaas waxay keenaysaa iimaankiisu inuu kaco inuu markaas soo noolaado laakiin waxa daran niman iska warhay ma ka war isagoo dhibaato badan haysato oo duruufiisa adkaadeen in looga soo galay diin xumadiisa iyo macaasida iyo xumo ku jiro inuu fahmi waayo waa arinta marka maaragtay khatarta ay xun weeyaan waxa kamid oo macaasidu waxyaabaha raadka xun ee bulshada ku reebaysa waxa kamid ah xirmaanu taacada iyo hoggaansanka alle qofka laga xarimo waayo dunuubtani waa shay nuxsi ah shuumi xun bay leedahay waxay dhaxal siinaysaa qofka maxay xumaan bay dhaxal siinaysaa oo kullama qofku rabbigu caabudo oo cabsi meesha ay timaado oo alla ka yaabu iyo taaca uu la yimaado waxay noqonaysaa marka qofku inuu fiicnaado oo hadhowto waxay yiraahdaan khayrku iyo taacadu taacay ku dhashaa markastood wax wanaagsan samayso waa sii dhiiranaysa wax kale samayso khayrna samaysato oo hadhowto qofku hadii uu jamac laazimi jiray oo salaada subax masaajidka aanu ka saami jirin maalinta uu habsaamay hurda la tagto was'il kambiya wal baahaya xaalad waa ku xuntay saaka jamcu ay dhaafay waayo wuxuu ka dhigan yahay sida kalluunka biya ka dhex baxay waa baqteeya بينما كعاص معصينا وتاسك سور جيدا وقفك markuu macaasi ku dhex jiro oo waxa walaaqanayo waxa had iyo goor macaasi u dhalaysa macaasi kale dambi buu ku dhalaya markaas wuxuu noqonayaa qofkani inuu macaasida uu wado oo had iyo goor aan hadhow taadu ka dhex baxo adkaysan kari ma iyadii buu rabaa saadarteed waatay oran jireen kuwa khamriga cabo oo kale de waxa weeyaan marka hore waxa laga siiro hawliya inuu isaga cabayay laakiin markii dambe wixii uu cudurku galiyay baalkii uu iskaga saaraya marka waa inuu cabaa ka daba geeyaa kii hore ka qaadka cunaya wuxuu leeyahay qaadiray waxba iyo adkaysan kari ma wayaan maartay way ayaa baalkii cudurku baalku markii hore galiyay buu iskaga saaraya wakiila wakaasin sharibtu ala ladhatin wa ukhra tadawaytu biha minha marka hore khamriga wuxuga uu bilbilaabayay macaan sibaan qadan lahayn markii dambana cudurka galiyay iskaga saaraya marka soo si cabayaba isku daweynaya cudur isku daweynaya mogti دع عنك اللومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي هي الداء تي عذر كيغا هيدي كبولي وعقاد لي معقتي خبرك يعني عذر كيغا هيدي كان أنا اسكو دويه وهو نفتي صاي برطي marka wuxuu iskaga saaro cudurka iskaga saaro waan xumay buu ka gujiraya fuu karma marka intuu ku adagta Soomaali waa ku adagta وكان دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر marka waa cudurka naftiidi marka macaasi waxay keenaysaa qofkan waxaan uu qabsado inuu hadiya goor jeceliyo inuu sameeyo oo macaasi kale uu sheedasho wada uun laakiin waa iska goyn karaa oo macaasi qofku uu sameeyay ee daa'im u ahaa haduu raganimo la yimaado waa la iska gurin karaa sida ilmaha naaska looga guriyo oo marka naaska laga guriyo ilmihii markuu weynaaday marna noqon lagama hawo qabo inuu jeclaysto naaska inuu noqdo waa ka yaqiinsoonaya waa nacaya macaasuna waa saasoo kale oo haddii naftiisa uu ka saaro oo iska guriyo oo ka joogsado uu ka guraya marka waxay keenaysaa macaasidaasi inay markaa qofka ka xarimto taacadii oo iyada uu ku mashquulsanaado oo hawsheeda ku jiro oo wixii taacee wanaagaha iyo la ka yaabaha ay ka xayirta bay keeni kartaa waxa kamid ah haddii ay badato dunuubtu inay qalbiga qofka ay daboosho ilaa uu noqdo meel gaafiliin kuwa iska daman oo halmaansan wax uu ku nool yahay baan iska warhaynin baad dhici kartay inuu gaaro oo rasuulka inooga warramay salawaatullaahi wasalaamu calayhi addoonku hadduu gaf ku dhaco oo gaf khata uu galo nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa qalbigiisa baag madow ayaa fuusha qalbigiisa
haddii markaa uu ka tago dembigii oo ilaahay u soo noqdo oo dembi dhaaf weydiisto qalbigii markaa waa la nadiifiyaa sida muraayadoo kale ayaa wasakhdii yara fuushay looga safeeyo oo kale ayaa qalbigu markaa uu noqdo qalbi nadiifa hadduu mar labaad u soo noqdo dembigiina ziida fiiha waa lagu siyaadiyaa baagti madoobayd xataa tacluu qalbah ilaa qalbigiisa oo dhan ay ka dulmarto wahuwa araan alladii dakarahu allahu fii qowlihi tacaala kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun ilaa ay raan noqoto wax qalbigiisa madoobeeya oo wuxuu odhan jiray xasanulbasri huwa adambu cala adamb xataa yacmiya alqalbu waa dembi ka daba imanaya ilaa qalbigu indhabeelo dam uu noqdo marka macaasidu waxay keenaysaa iska soo daba noqonaysaa ee marba intuu qofku sameeyadana ka daba tegayso waxaa laga yaaba marka dambe ay noqoto qalbigiisi inuu madoobaado oo raankaasi uu fuuro rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ka digey axaadiistiisa oo macaasida meelaha qaarkood buu tilmaamay sida xadiidkii layantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljumucaat aw layakhtimanna allahu calaa quluubihim uma layakuununna min alghaafiliin rasuulku wuxuu leeyay salawaatu ullahi wasalam dadka qaarkood way iska dayn doonaan ka maqnaanshaha jumca ay ka maqan yihiin oo qaar baa jumca aan imanayn kuwaasuu digey haddii kale waxa weeyaan qalbigoodaa la dabooli doonaa maqnaanshaha jumca ay ka maqan yihiin oo iman waayeen qalbigoodaa la dabooli doonaa dabeetana waxay ka mid noqon doonaan kuwa haafiliina oo halmaansanoo wuxuu u nool yahay iyo wuxuu joogo toona aan ka warhaynin marka waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qofkaasi qalbigiisu markuu saa noqdo inuu markaa noqdo qalbigiisu jidh meyd ah oo dhintay qabri uu noqdo jidhkiisu qalbi meyd uu ku dhex jiro qof dhintay oo maxaanku dhahda jidh iska jira oo taagan oo muuqaal ah oo waxa weeyaan uu dhex jiifo qalbigii sida maaragtay qabriga oo kaleba meydka loo dhex jiifiyo buu soo baxayaa siduu lahaa fanisyaanu dikri illaahi mowtu quluubihim wa ajsaamuhum qabla alqubuuri qubuuru oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo daacadiisa laga tago oo laga fogaado qalbiga dhimashadiisa weeye oo jidhkoodina markaa intaana xabaalba tegin bay meyd yihiin markaa qalbigani waa meyd maxaanku dhahdaa meyd ku dhex jira oo intaana xabaalahaba teginba saasuu markaa cabiraya waxaa ka mid a markaa waxyaabaha macaasidu ay keenaysa raadkeeda ah in uu dadka iyo bulshada mujtamacu ku dhaco waxyaabaha yani si guud u dhacaya oo ay ka mid tahay khasfi dadka maaragta la khasifo oo ama dhulka lala gooyo ama dhulgariir lagu sallido ama waxa la maskhiya doorsoon ku dhaco ama haziimooyin ee jabu ku dhaco waxyaabahaasoo dhan waxaa keenaya waa dunuubta iyo macaasida ayaa keenaysa oo aayaddii aynu akhrinay bilowgii maaragtay muxaadarada baa laga qaadan karaa fakullan akhadnaa bidambi mid kasta dembiga faminhum man arsalna calayha xaasiban waminhum man akhadatu sayxa waminhum man khasafna bihi alard waminhum man agraqna wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun marka dembigay galeen awgeed baa siyaabaha kala duwan kuwa biyo lagu hafiye iyo kuwa dhulka lala gooye iyo marka waa aahaarta macaasidu ay leedahay oo ummadaha hore dhan waxa ku dhacay oo maskhiga ah oo qaraqa laqribiye lagu hafiyey ah ma aha ummaddani qudheedu inay ka madhnaanayso oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu sheegay ummadda nafteedu inay waddadaa hore marayso xadiidka cimraan bin xusayn ayaa arrintaa u daliila fii haadihi اlummati khasfun wamaskun waqadfun ummaddan waxaa ku sugan buu ihi khasf dhulkoo lala gooyo maska oo muuqaalkooda la bedelo qadfi oo la shiido dhagax lagu soo daadiyo waxaasoo dhan baa sugnaan doona markaasaa nin baa wuxuu ku yidhi muslimiinta ka mida yaa rasuula allah wamataa daaka baa xadiiskan u fiirsada arrintaasi goormay ahaan doontaa goormaa dhulka la isla goynaya goormay dhaci doontaa in maaragta dadkii la bedelo maska ku dhaco arrimahaasi goormay dhici doonaan idaa daharat alqaynaatu waalmacaazifu wa shuribat alkhumuuru xadiidkaas tirmidi baa wiyey saxiix sunan tirmidi ayuu sheekh albaani ku keenaya raqamka aduu xadiidku guud ahaan wey markay muuqdaan dumarka heesaa hadda waqtiga dhulka la isla goynaya hadda u fiirso ee masku dhacayo waa markay muuqdaan alqaynaat almughaniyaat waa dumarka heesa markay muuqdaan waxa la yidhaahdo almacaazif waxa musiga la garaacdo noocyada la garaacaya kamanka iyo maxaa la yidhahdaa gitaar iyo balaa waxay jafayaan maanta la garaacayaan dumdamta ah ee macaazifka aalaadkaas waa marka la garaacday muuqata arrintaas wa shurbat alkhumur khumurta marka la cabo saddexaas daahir ma yeelisa maaha saddexduba waa waaqicaan hadda la isagaba sheekaynay oo bulshada islaamiga meel kastay joogto waxaan miidiyaha yidhaahdaan waxa la daawado iyo waxa dhegaystaba qof dumareysa isruxaysa oo saas leh iyo mid maxaan ku dhahay dib ku horeeyay music garaacaya
waa shay iska caadiyaba oo bulshada ay arkayso wax basiid ah oo aan macno weyn lahayn baa bulshada u arkaysa waana waxyaabaha rasuulku sheegay ummadda marka la halaagayo marka waxaas muuqdaan khamrigi baa wuxuu noqday waxyaabaha iska caadiga ah oo waayii hore dadku waa qirqirsan jireen dad cabayo meelaha dhacdhacayaan aragtay iska soo gal oo wadalkaynu ku noolahay ma dal gaalaaba qof mujtamac bulsho islaami dhexdeeda dhacdhacayo la ka khamri soo cabdi oo wax ka qabanayaan jir oo mashaakilkeen haysta kamid marka waa daahir khamrigi oo wixii muusigii la ciyaari baa garaaci baa daahir ah oo heesi dumarkii muqanniyaadka baa daahir ah waxa la sugaa maxay noqonaysaa marka dee ciqaabta ilaahay naga hayo khutuuradii rasuulku sheegay marka ninkaas su'aashu weydiiyay wuxuu marka intaasi muuqato waa marka khasf iyo masqi iyo qadfi ku dhacay rasuulku salawaatullaahi wa salaamu calayh waa arrin marka khatiir ah oo loo baahay dadku digniin xoog leh nafta in la badbaadiyo ummadda bulshadu waa wax isku wada xidhan oo u baahan ummaddu si jamaaci inay u fakarto oo qofka xumaanta samaynaya xumihiisu haddaan laga hadlo wax laga qabanin waxay noqonaysaa in la iswada halaago halaagu dhaco si halaaga marka looga badbaado waa in marka la isku fooganaada oo khayrka faafintiisa xumaha qabashadiisa laga hadlaa afa amina alladina makaru sayi'aati an yakhsifa allahu bihim alard aw yaatiyahum alcadaab min xaysu laa yashcuruun wuxuu ilaahay leeyahay ka aamin noqdeen kuwa xumaha samaynaya ee maaragtay waxyaabaha xumaanta ku dhex jira an yakhsifa allahu bihim alard ilaahay dhulka la gooyo ama cadaab u yimaado meel aanay dareensayn uga yimaado miyay ka aamin noqdeen waxaa la rabaa marka in dareen weyn aynu qaadano dadku waxaa laga yaabaa waxyaabaha wax yaryar bay u haystaan wax fudfud bay diintu ma laha yaryaraysi waxyaabaha awaamirtee la isfarayo yaryaraysi ma leh waxyaabaha nawaahida la iska reebay yaryaraysi ma leh sidaa darteed baa xadiidka nucmaan albashiir wuxuu yidhi rasuulku salaaddii buu nagu soo jeestay markuu loo qiimay salaaddii markaasaa wuxuu yidhi aqiimuu sufuufakum saddex jeer aqiimuu sufuufakum war safkiina toosiya war safka toosiya markaasuu yidhi wallaahi latuqiimunna sufuufakum allaan ku dhaartee safafka waa toosin doontaan aw layukhaalifanna allaahu bayna quluubikum ama alla quluubtiinnu isku hidhufanayaadoo quluubtiinnu iskin weydaarinada iskhilaafsan oo iska soo horjeeda mid ka dhigaya markaasa waxaa arkaya fara'aytu arrajula yulsiqu mankibahu bimankabi saaxibihi wa rukbatahu birukbati saaxibihi wa kacbahu bikacbihi markaa dee amalka la fulinayaado waxaan arkay raggii saxaabadii oo ninba nin kale garabka saarayo oo maxaan ku dhahdaa ruugga ku beegayo oo canqa ku beegayo si fiican safka loo taagayo baa arkay buuri halkaa waxaa ka muuqanaysaa safka oo la simi waado waxaa ka dhanay ummaddu in iskhilaafto oo khilaafka ummadda haysta meelkaad ka raadinaysaan meelkaa laga baadhbaadhayaaye waxaa ka mid a sufuuftoo la hagaajin weyda ummadda khilaafkeeda keenaya in saa la isu wada haysto oo talaba ururi weydo wuxuun is wada haysto iska soo wada horjeeda safkaasay ku xidhantay marka sahalashada umuuraha la sahlada maxaad u malaynaysaa salaaddii baa laynaga hadlayaa safkoo la simayo waa juziya waa shay ka mida diintii waxyaabaha waaweyn ee lagu dhacayana maxaad u malaysa waxyaabaha waaweyn ee la khilaafayana maxay kula tahay haddii safkii la yidhi haddaad simi weydaan waxaa dhacaysa khilaaf baa ilahay dhexdeena dhigaya oo saxaabadii rasuulku markii yowma uxud waa garanaysaan qisadeedii yani macaasidan inay keeni karto hazaa'ib iyo burbur macaasidu ay keenaysaa oo ay ka mid tahay marka inay yowma uxud rasuulku markuu ciidanka qaybiyey oo qalo uu la ballamay buurta dhabarkeeda wi xaggaa dambe jooga oo haddaadna aragtaan iyadoona laga kala tegay xitaa ha ka soo kicina waatay khilaafeen amarkii halkii baa looga soo golo jab baa ku dhacay muslimiinta markaasaa ilahay wuxuu leeyahay awalammaa asaabatkum musiibatu qad asabtum milayha qultum annaa haada markii idinku dhacday dhibaato toddobaatan laydinka dilay subaarti oo idinku labalaabkeeda samayseen hadda ka hor oo dee beder baa idiin horeysay toddobaatan qabaalateen waxaad tidhahdeen annaa haada arrintu waxay ka timi maxaa jabka inoogu dhacay maxaa rasuulkii baa dhex jooga oo la dakray oo dhooshtii la jabiyey oo dhiigu daatay nabiyullaahi maxamed salawatullahi waa macaaseen dadku galeen ayaa waxay keentay rasuulka xitaa in dhaawacu soo gaadho salawaatullahi wasalaamu calayh markaasaa waxay yidhahdeen ilaahay baa wuxuu leeyahay waxaad tidhahdeen xaggee arrintan ka timi qul huwa min cindi anfusikum idinka naftiinna xaggiinnay ka timi ina allaha calaa kulli shayin qadir marka idinku iska waraysa fatwadu xagga allay ka timi hawshu waa idinka cid kale aarsan marka nasriga marka qaarkood macaasidu nasriga iyo guusha waxay u beddelaysaa haziima iyo jab bay u beddelaysaa marka ilaahay subxaana wa tacala la khilaafo waxa weye marka taasina waa qodob runtii aad muhim jiddan u ah oo waxyaabaha ummadda ku dhacaya ee hazaa'imka iyo jabka iyo burburka iyo khilaafka waxaasoo dhan waxaa u sababa macaasida u sababa
ولذلك ابن مسعود وحلي حديث وكورني رسولك صحابة الله هذا وحلي يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر أمر كان قيادة ومضى إنك أسكره ما لم تعصوا الله انت إذا إلهي عاصي فإن عصيتموه هذا إلهي عاصدان بعث إليكم من يلحاكم إلهي يقول صلى الله عليه وسلم ديرته ديرته عليها كما يلحى هذا القضيب سيقوري قاس لو ديرته قوري مركا أو سارية محن كلها ما يلحى قالكي بوصاب يلحى وقاتي سكا لو ديرته كله كوا نقدر كسيو ديرته بإلهي يقول صلى الله عليه وسلم عاصدان محن كلها هذا شرعي إلى العاصدان وهذا مركا كله حتى حق حديث كاس هو حديث صحيح إمام أحمد وريي سلسلة الحديث الصحيحة رقم كل شاب قلبي كنت بكسوية ومركا دي ومعجزة الرسول كم ده يدو مركي أي خلافين ومدي مركا قريش وحكذا شيء ودي مركي دم قيادة مدهصة طبيعي مركي سديلة لها واعي بايلاي سبحانه وتعالى مذكر وعاجمة أي مركا حلك اللي وريجنا أو قرية كره أي مركا كقب صدين ودي بعتبر الإسمري ويقول جبير بن نفير حديث إمام أحمد ورينا بسند صحيح ما أنت قبرص وفرطي وقاعد قاعد lagu dhigay ayaa waxa dadkii baa la kala qabtay oo gabdho dumarkii iyo waaragtay wiilashii iyo ragii waxba la kala guray wala kala qaybay markay isku ooyeen kala kaxaystay oo la qaybiyay markaas waxa arkay uu yiri Abu Darda raytu Abu Darda jaalisan wahdahu yabki Abu Darda oo meel fadhiyo ooyay baan arkay uu markaas waxa ku yiri ya Abu Darda ma yubkika fi yawmin a'azza Allah fi al-islam wa ahlihi maxaa ka ohiriya maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadii islaamka cizay sharaftii oo gaar inta gacan lagu dhigay maatadooda la qaybsanayo maanta kale ma in la ooyamiya wama in la farxay maxaa kaasi ah way xaka ya jubayr war jubayr hoogaage ma ahwan khalqa ala allah idha hum taraku amra maxaa dadka ilaahay agtii uga dulaysan oo wa qiimo daran markay amarkiisa lumiyaan wuxuu yiri waxay ahaayeen hiya ummatun qaahira dhaahira ومدحوق بدن أو إلهي أودسي لهم الملك بقرتوه يستيهاين تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى مركا إلهي أمركي سكتاقين ومعان قرى شرعي إلهي خلافين باوحس كل عين شبكا يبور بكاس والدرس اللي بإلا وانا ومركا أبو الدرداء يتابعي جوير بن فارك لقاطنا أيام ووليه مركا أمضة عزة إيا باورك يهود هيزتي مركا إلهي أمركي سخلافتي واتي إلهي بالبولي مركا أمضة إسلامك waxa halka gaarsiiyay dulinimada ee maanta aan reer bawyaa kula arintu taagan tahay oo cid aan soo muslimka wax weydiinaynin waxa weeye sababteedu ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ma ka leexdeen oo si la rabay ugu noolaan waayeen macaasi ay dunuubtaas baa sababaysa waxa ku dhacaya waxa kamid oo macaasidu qofka fardiga waxay ku sameynaysaa waa sababun li hawani al-abd ala rabbi waa sabab qofka ilaahay agtiisa ku duloobo ilaahay agtiisa qiimo ka lahayn oo marka qofku mar hadii aan rabbiga u hogaansanayn oo rabbiga aan u ateecaynin wax sharaf ilaahay kuma laha qiimaha iyo sharafta waxa lagu helayaa marka ilaahay amarkiisa la fulinayo oo qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ateecayo oo rabbiga u hogaansan yahay walidaalka waa kala quraankiisa kule waman yuhinillahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha qofki ilaahay ihaaneeyo duleeyo wax cid maamuusto kor soo qaadilay maayo qof ilaahay ihaanada waxa ku imanaysaa in la qaadan way asbaabtii khayrka walaaga iyo sharciga iyo taacada la iman waado waxa markaa qofku noqonaya inuu dulaysan yahay oo mar hadduu macaasi iyo dunuub iyo amarka alla uu khilaafsan yahay dulinima saaran wax soo kicin kara ma jiro wuxuu idaa kaana hada fi'l 'abdina bi nafsihi faman dha lahu min ba'di dha yukrimu marada arintaas ficilkiisa ay tahay oo isoo halkaas dhigay oo xumaanta walaaqanayo yaa sharfay buu yaa kor soo qaadi karay kor ilaysaga raba kor soo qaado oo xumaa ka dhaqaaqo oo wanaaga u soo laabtay la doonaya marka waxay keenaysaa macaasidu inuu qofku duloobo hadii aad rabto marka inaad sharaf iyo cizo iyo makaano wanaagsan ku noolaato absida ilaahay ugu taas marka qiimo ay tahay oo ilaahay quraankiisa ku tilmaamay yaa ayuhan naas inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيدكو شرف بدن إلى يكتي كيدكو قيمها بدني وهذا كيدكو عبس بدن مركا عبسدا يا لك يابك أيا لويه لي شرف يقينه هديك القف نقول يقف دليسن أو يهانيس إلى يكتي والرسول يقول فالناس رجلان تدخل على بنين
barun taqiyun kariimun cala allah qof ilaahay u adeecsan oo alla ka yaab ah oo wanaagsan kaasi waa kariimun cala allah ilahay agtiisa waa qofku wanaagsanoo sharaf buu agtiisa ka leeyahy wafaajirun shaqiyun hayinun cala allah waa nin maaragtay fallaag ah oo daacadii ka fallaagoobay oo maaragtay dhul darsan fogaado xumaaday ilaahay agtiisa kaasina waxa weeyaan waa ku ihaanaysay waa dulaysan yahay tirmidi baa wariyey waana xadiis saxiixa waxaa ka mid a macaasidu raadka ay reebayso waxay tahay waa daa'ul umam macaasida nooc kasta ay tahayba waa cudurkii ummadaha khalaa'iqdii adduunka soo maray cudurradeedii weeye macaasidu sidaa darteed baa zubayr ibnu cawaam saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu warinaya xadiidkii rasuulku yidhi dabba ilaykum daa'u lumami qablakum waxa idiin soo dusay oo idiin soo gaadhay oo idinku dhacay ummadii idinku horreeyey cudurkoodii alxasadu waalbagdaa waa xasadka iyo nacaybka hiya alxaaliqa laa aquulu taxliqu الshacr walaakin taxliqu اddiin odhan maayo markaa arrinta noocaasa ee xasadka iyo isnacaybka wuxuu yidhi waa xiirto odhan maayo markaa timay xiirtaaye diintay xiiraysaa oo marka dadku isnacaan oo isxasdaan oo qulubtooda markaa kala jeesato waxay noqonaysaa markaa diintooda meesha ku lunta xadiidkaa tirmidi baa weri waa xadiis xasana oo xaaliqadaas macnaha waxaa loo jeedaa waa qofka diintiisa inay halaagayso mar kale markaad eegto dunuubta noocyadeeda kala duwan markuu ka hadlayey gardarrada bagyiga iyo dulmiga iyo riximgoynta wuxuu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalam xadiidka abu daawuud warinayo bisanadin saxiix uu ku warinaya maa min dembin ajdara an yucajil allahu tacala lisaaxibi alcuquubata fi dunya maca maa yadakhiru lahu fi alaakhira milu lbagyi waqatiicati araxim dembi uga habbooni ma jira buu ku leeyahay rasuulku ilaahay ciqaabtiisa inuu soo dedejiyo adduunka iyadoo ay la jirto wixii loo kaydiyey ee markaa ciqaaba aakhirana bagyiga gardarrada iyo raximka la gooyo marka gardarradu iyo dulmiga iyo xadgudubka iyo riximgoyntu waa arrimaha degdeg u keena qofka in la ciqaabi ku dhacdo ciqaab degdega ku timaada adduunkiisa iyadoo ay jirto haddana wixii kale loo keediyey aakhira ay jirayso waxaa kaloo markaa meesha ka muuqanaya dulmiga ama bagyiga iyo xadgudubku waa waxyaabaha markaa dunuubta waaweyn ee khatartaa ee qudhada dhibaato badan ku reebaysa qofka raadkiisa naftiisa waa kii xitaa ninkii naadimka wuxuu lahaa cadliga ilahay waxaa ka mid xitaa buur hadday ku tacadido in buurta ilahay baabiinaya buu yidhi falow bagaa jabalun yowman calaa jabali landanka minhu acaalihi wa asfaluhu wuxuu yidhi haddii maaragtay buur maalin ku gardarooto taa gardarootay kor iyo hoos dukumdaakum baa laga dhigaya buuri marka dulmigu wax la ogol yahay maaha marka daa'ul umam xadiid kalea rasuulku ilaa 7 nooc oo macaasida ah buu wuxuu ku tilmaamay cudurrada ummadda oo cudurrada ummadaha ku dhaca wuxuu yidhi sayusiibu ummatii daa'ul umam ummaddayda waxaa ku dhici doona cudurradii ummadihii hore ku dhacay cudurka ummadihii hore ku dhacay faqaaluu yaa rasuul allah wamaa daa'u lumam ummadaha cudurkoodu muxuu ahaa qaala alasharu waalbadaru waaltakaahuru waaltanaajusu fi اddunya waaltabaagudu waaltaxaasudu xataa yakuuna albagyu waa 7 nooc taqriiban ashar waxaa la yihahdaa waa qofku nicamta inuu ka gaaro wix ilaahay siiyey ee nicama uu hayn kari waayo oo hadda kufraadu nicamku iska fara badan yihin waxaad arkaysaa nin xoolo badan haysta oo intaas ilaahay u dhibceeyey haddana aan deganayn oo waxba maana hayaba ku leeyahy waxba gacanigu ma jiraano intaa mid caydhiya wax qaato meel tacbaan ah ayuu isagoo 100 geel ama 200 halaad leh ama dee maasha allah xaalad saare ay fiican tahay umaaduna gargaraacaya kufraadu nicam bay ka mid tahay nicamta ilaahay ku siiyey ruuxaad haysato iimaanso ilahay nicam buu ku siiyey waa ashar baa la yihahdaa badarkuna waa kibirka iyo qooqa qofku inuu nicamta ladnaanta aطugyaan cinda nicma ayaa la yihahda qofku inuu markaa nicamta marka ilaahay siiyo uu qooqoo kibro التكاثر وحول أرورسي إنه ما أنت على كم التكاثر كلابتس ما أنت روح أرورن بوجرة وعذرة كمتة تناجش وفلسات بيانات قفوا إنه يبكي عجيزة وقف كل كفر اللي يبكي يفسدوه وحكم ده التباغض إصناعيب إيو إسعارات إيو يحسد أي كم ده وحكم ده بقي كردرة الربا صلب وحكيريان وأنا حديث كلام حاكم باوريي الشيخ الباني وتحسينية صحيح حديثة نحب قولي استيتن مركب حوي وداء الأمم marka cuduradaasi waa cudurro dilaa ah oo khatar ah oo wax fasaadinaya oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo inoo sheegay weeyaan waxaa ka mid ah waxyaabaha raadka uu reebayo macaasidu ay reebaysa waxaa ka mid ah waa mumxiqatun barakata alcumri wa barakata alrisqi wa barakata alcilmi wa barakata alcamali wa barakata ataaca
waxa la wixii barako oo dhan bay macaasi baabiinaysa umriga barakada ka qaadaysa rizqa barakada ka qaadaysa cilmiga barakada ka qaadaysa amalka uu qabanay barakada ka qaadaysa taacada iyo gaasga barakada ka qaadaysa oo macaasidani waa shay xuno waxa weeyaan adduun iyo aakhiraba qofka way baabiinaysa waxa laga yaabaa qofkan umrigiisii mar hadduu macaasi wax walaaqanayo baraka male umrigiisa sanawaad badan ba ha noolaadee haddana wax badan ma taxsiilin oo ma keenin ka tegitaanka macaasida laga tago iyo waxyaabaha ilaahay xarimay waxay sabab u tahay barakaadku inay soo degaan iyo khayraadku oo wax kasta barakoobaan xooliga barakoobaya rizqa barakoobaya dhulka barakoobaya amni iyo nabadgelyo la helaya waa ka ilaahay walaw anna ahlal qura aamanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard walakin kadhabu faakhadnaahum bima kaanuu yaksibuun marka waxa weeyaan dee waxay keenaysaa alla ka yaabka iyo taqwada iyo cabsidu in ilaahay subxaanahu wa tacaala barakaadka samada furo oo naxariista roobka wixii dhulkana ilaahay baad ka soo saaro iyo beeraha iyo xoolaha iyo ubadka iyo maalka intaba ilaahay uu barakaynaya subxaanahu wa tacaala laakiin macaasidu waxay keenaysaa in waxaasoo dhan barakada ay ka qaado marka waa isu cagsi waan low istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maa'an gadqan hadday waddada ku toosnaadaan oy toosnaan lahaayeen waxaan ka waraabnay biyo maaragtay fara badanoo wanaagsan ayaanu siin lahayn marka taas waxay keenaysaa macaasidu inay khayr oo dhan ka xayirto ayay keenaysaa xudayfa ibnulyamaam wuxuu rasuulka maalmaha ka mid a istaagay fadaca annaas dadkii buu u yeedho wuxuu yidhi halummuu ilaya war ii kaala eg balkaalada faaqbaluu ilayhi fajalasuu intay u yimaadeen bay harina fadhiisteen rasuulka markaasuu yidhi haadaa rasuulu rabbi alcaalamiina jibriil kaasi waxa weeyaan waa rasuulka ilahay soo diray waa jibriil nafatha fii ruucii naftayda wuxuu ku tufay oo ku tuuray annahu laa tamuutu nafsun xataa tastakmila risqaha nafi dhiman mayso ilaa risqeeda ay dhammaysato naf kastaaba koobka biyaha dhicda u dambaysa ee ilaahay u qoray ilaa ay dhammaysato ka bixi maysa adduunka kale wain abtaa calayha dib baa uga dhaco waxyaabaha maaragta la siinayaa fattaquu llaha alla ka cabsada waajmiluu fi alab waxa doonista iyo dalabka wanaajiya walaa yaxmilannakum istibtaa'u risqi haddii risqu dib idinka dhaco yaan idinku xambaarin an ta'khuduu bimacsiyati illaahi inaad ilaahay cisyaankiisa ku qaadataan oo xalaasha haddaad yar weydo xaaraan ha raadin anigu waxaan helaba afkaan u dhiganaya ha odhanne agta u dhig oo maaragtay xaaraanta iska ilaali fa ina allaha laa yunaalu maa cindahu ila biaacatih ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu hayo laguma gaadho aacadiisa mooyaane waxa waayo khayraada oo nicam ah waxaa lagu helayaa oo risq wanaagsana oo cilmiya oo ilaahay inuu maaragtay waxaad u baahanta ku siiyo daaca lagu helaa xadiidkaasi atarghiib watarhiib ilmundiri ayaa soo saaray waana xadiid xasan ah marka waxa weeyaan risqa waasica iyo camalka waxaasoo dhan waxay ku barakoobayaan waa طaacaadka ilaahay subxaana wa tacaala ateecayo ayay ku barakoobayaan walidaalika waxaa camalkana marka qaarkood uu qofku samaynaya isagoo طaaca ku jira oo wanaag samaynaya baa macaasidu barakada ka qaadaysa waxaa u daliila xadiidka thawbaan oo ibn maaja uu wariyay waana xadiid saxiixa wuxuu rasuulku yidhi waxaa idiin sheegaya aqwaam qolaa idiin sheegaya ummaddayda ka mid ah ya'tuuna yowma alqiyaama bixasanaatin amhaali jibaali tihaama biidan waxay la iman doonaan maalinta qiyaame buuraha tihaama la yidhaahdo xasanaad leeg buuraha waaweyn xasanaad leeg oo khayraad ah ayay la iman doonaan fayajcaluha allaahu habaa'an mantuuran baabbaha baa ilahay ka dhigaya wax allaale wixii buurahaas xasanaad leekaa oo dhan baa ilaahay baabiinaya markaasaa thawbaan baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi sifhum lanaa jallihim lanaa nimankaa noo sifee nimankaa noo fayd oo bannaanka noo soo dhig aanu fahanay noo caddee nimankaa an laa nakuuna minhum wanaxnu laa naclam saanaan u noqon annagoon ogeyn war ma qabtay nugu helayaan sifaadka ay dadkaasi haddaan ogaano way is ilaalinaynaaye saanaan uga mid noqon oo maxaa innagaan ka war haynin noo sheeg rasuulka ilaahdo markaasaa rasulku wuxu salawatu ullahi wasalam aleyh amaa inahum ikhwaanukum wa min jilda horta waa walaalihin muslim ah idinka idinka mid yihiin waya'khuduuna min alleyli kama ta'khuduun xadiidkan waa xadiis culus ogaada habeenkiina waxay qaadanayaan wax ka qaadataan salaatuleyl bay tukanayaan habeenkiina salaatuleyl bay tukanayaan walaakinahum aqwaamun idaa khalow bimaxaarim illaahi intahaakuha laakiin waa qolo marka ay shay xaaraana la gooni noqdaanba ku
ku dhacayaan u abayeelin macnaha way macaasidii buu ku degdegaya saadi leelku tukanaya maradu saadi leel tukanayo salaadii kale jamac iyo faraa'id meel buu saaray soo maaragtid laakiin xaaraantii u abayeeli maayo faaxishaadu zina arkan waa dhag buu ku siinaya waxoogaa xoolaha hadduu yar afku isaga dhiganaya qaar baa saadina tukanaya waxaan ka xaaraantanayn xoolaha iska cudariiqaya waxay arkaanba xaraan iyo xaraan iska guranaya marka waa noocaas khatarta ah oo bari kamaan wuxuu soo tabcay oo dhami waxay noqonayaan baaba waa kii saaxiibka qaataari lahaa waidaa khalawta biriibatin fii dulmatin والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نذر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني هذه النفط هذا هذا من المقدية جوجا إن الحمان كل غدا أي دونته وحتى يستحي من نظر الله نفي كحشوط أنا إلهي نفي إلهي وكو أركاي كحشوط وحد قلت هذا إن الذي خلق الظلام يراني اللي مقدي أنا أبوري ويجيدا اللي مقدي أنا أبوري ويجيدا نفط هذا كله oo ka joogso xumaad aad naftaada maagan tahay oo ay rabto inay ku dhacdo waxa kamid ah waxyaabaha macaasidu ay leedahay ee keenayso tuurisu dhulla wala budda waxay dhaxalsinaysaa qofka waxa la yiraahdo dullinimo ay dhaxalsinaysaa macaasidu waana khasab inay dhacdo way cizzada iyo sharaftu iyo wanaagu taacada ku timaada man kaana yuriidu al-izza falillahi al-izzatu jamii'an qofkii cizo doonaya dalbaya ilaahay xaqiisa ka rabay Allah u sugnaatay oo marka maxaa lagu helayaa cizada iyo sharafta waxa lagu helayaa taacada ilaahay iyo amarkiisa la fuliyo iyo acmaash saalihaad kula la yimaado laakiin hadduu qofku taacada ka tago oo macaasidii walaaqdo waxa marka dulinima saaran walidaalka waa tii ducadu ahayd innahu laa yadhillu man waalayta walaa ya'izzu man aadita oo marka cidaad wali u noqoto dulinima waa ka fogtay qof aad u culaadisayna ciise iyo agtiisa ma taalo nin macaasi ku jira ilaahay u culaadi ya dagaal buu la kula jira nin ilaahay caasiye waxa weeye waxba ma yaalin oo rasuulku waa kira ya macshar al-ansar alam takunu adillatan fa'azzakum Allah meedina aan dad adilla oo iska maartay liita oo ilaahay aad u ciisayn diinta ku ciisayn qaalu sadaqa Allah wa rasuluhu ilaahay rasuulkiisa ya run sheegay xadiiska imaam Ahmed wal sanadkiisa waa sahih وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كمد والله هذا ابي عبيده بن الجراح markaasuu xaaladu say ahaayeen markay gaala ahaayeen iyo markay islaameen say ahaayeen buu tilmaamo wuxuu inna kunna adalla qawmin waxaanu ahayn dadka ugu dulaysan baan ahayn daan carabnahay fa'azzana Allah bil islam ilaahay wuxuu nagu cizeeyay oo nagu sharfay oo qiimo noogu yeelay waxa weeyaan islaamnimada famahma natlubu al izza bighayri ما أعزنا الله به أذلنا الله مركز تو أنو كضربنا عزة شرفته حق على ميان هين إلهي وين الدنيا هو حماة المسلمين تهيس لبا تهيست عزة شرف على غير هذه قاردي عدو إلهي عاسي إيكا قالوا بي با هوستا لغير نبيه إساقون باو حلمودية إساقا لغا طلق قادنية إساقا لغا قعنت الله ورسانية إساقا مركز هدو كاري عليه ما شاء الله مبارك باطي دي قالكو هدو نبارك كاتابتو قالكو هدو نبارك كاتابتو ما شاء الله حالك ومحما سبارتي ميل aad u leeyahay toobad maraysa oo waxa way si fiican ba maskaxda looga qabsaday dad la qabsaad moodado baabay marka Umar bin Khattab hadalka uu sheegay hadal culus weey dad dulaysa naflayn baan ahayn laakiin ay wuxuu nagu cizeeyay oo sharaf noogu yeelay ilaahi diinkiisa markasto aanu cizeeyay sharaf ka raadino diinta meel aan ahayn ilaahi waa la duleeyaa muslimiinta asaas ku socota oo kullaba meel kale ay gacanta u taagtaagaan Allah subhanahu wa ta'ala waa duleynaya waa waxa socota waa ka rasuulku raaa وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري دل النمو يهوان يوصين وحسقنا ذي عدي أمرك خلافتي بالرسول كله صلوات الله والسلام عليه حديث كان أحمد داوري وأنا حديث صحيح كحويان وهي كارثة معاصده وهي كارثة معاصده دلي قف كفوله كارثة وكيلا نك ناظمك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها يعني وحارك ذنوبته قلبي مارتي بختي سابولي ومركا دائميد هذه قرقفو دائمو oo joogtayna dulinimo ay dhaxal saabuudi marka ka tagitaanka duunta laga taga waa xayaatul qulub noosha qulubta nolosheeda weeyaan marka naftada waxa u fiican inaad arinta noocaasa ka soo horjeestay kulay ibn qayyim qudus wakiila wa huwa al mu'izz li ahli ta'ati wala عز
حقيقي بلا بطلان وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقاء وذل هوان alla waa allah wax ciziya dadka ah taacab ciziya cidda u hoggaansan ee markiisa fuulaysa ee wuxuu ka rabay kaaraysa ciddaas alla subhanahu wa ta'ala waana cizi xaqiiqi oo bila budlaan buudi wuxuu duleeyaa ciduu doono oo waxa weeyaan laba daarood maaragtay dulli shaqaa oo shaqaynimo yimid yaani maaragtay hawaanood hoosayna buu ilaahay subhanahu wa ta'ala duleeyay marka dumar saaxiib macaasi yahay akhriya adduun toona nafku ma haysto marka waxa weeyaan in dadku ay dareemaan sharafta iyo qiimuhu iyo cizadu inay tahay diinta ku dhaqankeeda oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam calayhi xaaladaha oo dhan waa ka saadaaliyay uu ka tanabuay uu ka sii waramay oo duruufayna haysta waa kii xadiidka Abdullah ibn Umar macruufka Abu Daawud wariyay ila tabaaya'tum bil hiina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum oo haddii aad nooca ciinada oo buyuucda aan bannaanayn ah haddaa wax u kala iibsataan oo aad looda dabada qabsataan oo macnaha aad ku mashquushaan waxaad leedahay adduunka shaqayntiisa iyo beerafalideeda oo jihaadka ka tagtaa ilaahay wuxuu ku sallidaa dulli buu tushina saar dulli oo aan markaa dulligaas aan leedin ka siibayn walla aan idin ka siibaynin ilaa diintiina u noqotaan hatta tarji'u ila diinikum ila diintiina u laabataan noqoshada diintu marka waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada loo laabto halkaas xalku ku jira oo laga run sheego oo noqosho fiican oo sax ah oo ku dhaqan ah lala yimaado halkaas waxa soo baxaysa marka cizada ummadda iyo sharafteedu halkaas ay galaysaa waxa kale oo kamid ah oo cuqubaadka ay keenayso macaasidu iyo dunuubtu annaha tuzilu an-ni'am al-haadira wa taqta'u an-ni'am al-wasila wa tahullu an-niqam waxay keenaysaa inay nicmada joogta baabi'iso waxay keenaysaa tasoo socota inay goyso waxay keenaysaa inay maaragtay dhibaato inay keento dhibaato iyo maaragtay wax la'aan iyo dhibaato keento oo taasina waa shay mujarrab ah nusuustuna ay tilmaamayso oo adduun qofka bani aadamka ee adoonka ahi waxa weeyaan nicmo kasta uu waayo dambi baa lagu waayaa nicmo kasta oo timaaday abaar iyo faqr iyo wax la'aan ku habsatana waxay ku imanaysaa macaasi iyo xumaan la yimi oo waxa lagu ilaaliyaa wanaaga iyo nicamta waxa lagu ilaaliyaa waa taacada ilaalinaysa wadaayadi wama asaabakum musibatin fabima kasabat aydiikum ويعفو عن كثير واحد كل عيا جركينا بدنكينا مالكينا حورينا يا أولادينا وواحد كسبتين marka kasabku waa macaasiyo dunubta loo jeeda وحديث بوحوها مختلج عرق ولا عين إلا بذنب يعني وحوها حيد مرق دقاقفك oo maartay iyo ilitoona dambi bay la dhaqaaqayso macna xawl xaqi wama yadfa Allah aan akthar waxa ilaahay ka difaaciyo qofka ayaaba ka fara badan tabraani baa wariyay waa xadiis saxiix oo marka waxa soo ku tusinayaan in ay noqonayso dunuubtan iyo macaasidani inay khayr badan ka tagsiirayso oo waliba ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka wax badan marka dhaafayaado xilli ka loogu talagalay walaw bima kasabu ma taraka ala dhahriha min daaba wa kana ilaahay subhanahu wa ta'ala ورسول صلوات الله والسلام على الحديث العقولي لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا هذه إلهي نوقب الله أن عيسى بذنوب تيدا نبي الله عيسى وأن عذابنا ولا يظلمنا شيئا وحنا مظلومين فكاسوا أشار بالسبابة وليس لها بكل إشارة صلوات الله والسلام عليه مركا الذنوب خطر لماذا أيوة تماما يا رسول صلوات الله والسلام عليه مركا وحيابا دعيه مصايبتا أما أبارها أما ربي الآنتا أما عدو الله يسلطه أما خلاف ما تقول عجرا وعصر معويان خالق كل عي حقي تدين كذاتك يبلشدا أي كفقاتي ومعاصدا يذوبت أي كشيء أي كيرت ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مركا وكاله سبحانه وتعالى كالله دي نعمت قفك ويستو قال لك كحين ما إلهي ويسكك حيان وحال الدنيا مركا إلا إلهيه si nicamtu ay walaashanto ay zuulin waxa lagu dabrayaa ee lagu ilaalinay waa shukrnaqa ilaahay baa lagu shukrnaqayaa qofku wuxuu ku ilaalinayaa nicamta iyo galada ilaahay ku siiyay ma hadda ilaahay ku shukr arabka ka shukrido jawaarixda ka shukrido cibaadada taacada la timaado taasa lagu ilaaliyaa ida kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzila an-ni'am wa hafid 'alayha bi shukri al-ilahi fa shukru ilahi yuzilu an-niqam yuzilu an-ni'am
marka waxa weeyaan haddaad ku sugan tahay nicmo ilaasho buu yidhi macaasidu waxay zuulinaysaa maxaan ku dhahdaa nicmada waxaad ilaalaysaa shukriga ilaahay fa shukru ilaahi yuziilu niqam shukriga ilaahay subxaana wa tacaala aad ku mahadisaa wixii niqamee wixii baas ee dhib ah ayaa shukrinaku markaa zuulinaya marka waxa weeyaan wixii aad haysana waa lagu ilaalinayaa waxa soo socdana waa lagu keenayaa shukrinaqa waytaadana rabbukum lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid oo markaad ilaahay mahadiso alla subxaana wa tacaala uu siinayaa waana ku siyaadinayaa waxaa ka mida oo ay keenaysaa macaasidu zawaalu اlamni wاliطminaan can alafraadi wاlmujtamacaat in la waado nabadgelyo iyo xasilooni bulshada iyo afraadduba oo mar haddii dadku ay macaasi galaan iyo dunuub xun walaaqdaan markaasa waxaa loo taagayaa maxaan ku dhaha colaado iyo maxaan ku dhahdaa faqri iyo dhibaato loo taagaysa ilahay qur-aankiisa ku leeyahay wadaraba allahu maalan qaryatan kaanat aaminatan muطma'ina yaatiiha risquha ragadan min kuli makan fakafarat biancumi illah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawfi bima kaanuu yasnacuun waa tusaale ilaahay wuxuu yidhi magaalo ayuu ka warramay xasiloon nabadgelyo haysata risiqu waasicu iyo meel kasta uga yimaado markaasay waxay nicamtii ilahay bay ka gaalowday markaasaa ilaahay wuxuu ugu bedelay meeshii barwaaqada iyo ladnaantana gaajaa loogu bedelay khawf meeshii amni iyo nabadgelyadiina cabsi baa loogu bedelay waa bimaa kaanuu yasnacuun waxay samaynayeen sababteed marka macaasida iyo dunuubta xuma ay samaynayeen baa nicamtiina waxaa lagu bedelay juuc iyo gaajo amni iyo nabadgelyadiina khawf iyo cabsi lagu bedelay waa ummaddana wax ku dhacay ummad iska degan oo barwaaqaysan oo ilaahay maal siiyey oo xoole adduun noocay tahayba ilaahay dalkan waa dhigay waa dalka adduunka lagu barwaaqa badan dhulkan ka mid yahay oo beer haddaad tidhaahdo xoolo haddaad tidhaahdo bad haddaad tidhaahdo kalluun iyo wixii duni nimcaysan iyo dhul waasica oo aan cidhiidh ahayn iska bannaana ah barwaaqada iyadoo la iska haysto oo wax u dhisan yihiin oo maamulo u dhisan yihiin bay kibreen markaase intay kibreen baa xabadda la iskala daalay oo la isu jabhadeeyey qawdaa la iska saaray waa taa meel laga soo qabtan la'yahay waa taa la is haysto oo wax dhammaanaya arrintu aan ahayn soo afjarmi weyda baasha marka ilaaha dadkii may fahmin dee meesha laga soo galay ilaa cudurka haddaadan fahmin dawadiisa heli maysid marka cudurku toobadkeen baa loo baahanyay ummadda tani wixii dhex maray inay ka heshiiso oo maaragtay waxa la yidhahda xiwaar maftuux ay furto wadahadal iyo maaragtay wada hadlaan wax dhex maray way heshiiyaan way ka baxaan maaragtay waxa macnaha lahayn ka baxaan markaasaa ilaahay markuu arkay in daacad yihiin oo isu soo noqdeen oo israbaan oo maxaan ku leeyahay saamaxaan oo iscafiyaan ilaahay subxaana wa tacala u barwaaqaynaya qiim u yeelaya sharaf bay yeelanaysaa inta ka horaysa miyaa waa iska burburiba ayaalka haysta weeyaan marka waxa weeyaan waa sida diintu ayna farayso noo sheegayso amniga iyo itminaan iyo xasilooni waxaa lagu waayayaa waa macaasida iyo dunuubta iyo xumaanta ayaa lagu waayayaa wixii la haystay khayra wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun waa ka leeyahay subxana wa tacala waxay keenaysaa macaasida iyo dunuubtu tuujibu alqatiica bayna alcabdi wa bayna rabbi kala go addoonka iyo rabbigii ayay keenaysaa dunuubtu oo markaa qofku markuu macaasi iyo xumaan ku dhaco asbaabtii khayrkaa ka go'aysa asbaabtii sharkaa ku xidhmaysa wuxuu noqonayaa markaa qof aan maxaanku ahay rabbigii xidhiidh la lahayn oo shayaaiin iyo ciidamo kale marka ay kaxaysteen oo haystaan cuqubada macaasida waxaa ka mid a tu'airu fi lquluub ka ta'hiir alamraadi fi labdaan quluubta inay saamayn weyn ku leedahay shakhs kasta qalbigiisa sida maxaan ku dhahdaa xanuunku uu jidhka u saameeyo oo xumadda iyo maaragtay waxa qof ku dhaca jidhkiisa say u saamaynayso kale qaarkood waxay ku shabbahayaan haddii qofka maalan la siiyo cunno fiican loo keeno laakiin sun loogu rido bal ka warran suu malabsanayo u macaansanayo cunnadii u daliigayo markaa cuno wixii caloosha ku dhacaan suntawna khalaas waa kale sakaraad weeya sun buu cuna ninka dhimayi marka waxa weeyaan macaasuna waa caynkaasoo suu macmacaansanayo macaasidii bay meel baas ka tuuraysa iyo shanshaan iyo meel baa maarata cuquba ahoo dee maa adduunka iyo aakhiraba ay halaagaysa marka waxa weeyaan waa dhibaato xoog leh ayay ku haysaa qofka macaasida iyo dunuubtu wuxuu yidhi dunuubtu waa jiraaxaad waa dhaawacyo dhaawacuna marka qaarkood dhaawac dilaa baa jira dhaawac qofka hadduu ku dhaco kow ka siinaya marka wuxuu yidhi walaa taqrab alamra alxaraama fainama xalaawatu tafna wayabqaa mariiruha ha u dhowaan buu yidhi shayga xaaraanta waayo xalaawadiisu way dhammaanaysaa xalaawatu tafna maxaa baaqeenay kharaarhkeeda iyo maarata kiiskeeda iyo dembigeedii baa hadhaya
وهذا قفك بني آدم كهدو سيد عن فكروا الدين الأختر هذا كويلا قال بها هذا الدورين حنون كاساكو هيا وعن كاجد دقيقة إلى روح نوع عصر عنطو هذا روح عنطو خطر بان في وجهته ما نسك دي حتى هو قاد كبار دخاتير بقار كودي هذا جوجين ويودي ما نسك ما قصدك تيجي قاد ثم كون نوع عصير محاكا الكتاب الجماعة خريستو البدال سكان مدين بعدك عايزة لكن هذه دين تقطعوا ديدو إنه قطعوا وعلى نفس مركوب بقوا واللي هذا بالكاسي وضو ما كان ديني وبني آدم كتبع سؤال كم وقت مركا هديه بني آدم وحكوا شيء قال باري أو كل عذرك كوهيا هذا إسكت دين ويدو خطب أنا فتاة كوجكتا بإلهي كورن حنو عذرك كوشي جيو ربي أيكو أبوري يدونك كوكيني بعقولي ورمعاصي يذنوبته وهلا جاجا ورمعاصي يذنوبته وعكوا بابايسو أنا واحد لي ما ووضنايا بني آدم قال كأول حكوا شيء اختار كأنا وضع قبش وضع قرات مركو يلي وأنا إسكت صوت رحمة ما قفوا يفكروا ويصير عليه نفتي سسوبة باديو يا الدنيا ظلمة في القلب ويكانتا مجد قلبي جاء وصينا رأسه الشجني دي قف مركم عساء سمعيه وهو شرع دم بقلبي زفولية رسولك يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهل حبالوه وهو دد كيدي بيكون مدوير ومجد ماشاني وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم تكشد أن كنت كنيو أي إلهي يقول نور يا مركا قبرك يقول نورنا يا مركا وحويان معاصيda iyo dunuubtu waxay madoobeynaysaa qalbiga qof hadalkaas sax muslim ku sugayay qalbiga madoobeynaysaa marka waxa rabaa in la iska ilaaliyo qalbigu kaaga madoobaan waxa kamida xadiiska rasuulku sheegay yaani waxyaabaha ka ratimaya dunuubta ahadiis gaar ayaa jirta oo rasuulku taabanayo xadiiska ibn maajah oo darajadiisu xasan ka ahayd oo shantii umuurood ee rasuulku ka hadlay oo ay kamid tahay dadka qaar kood dadku haday badiyaan macaasida oo zinada iyo faaxishada ay badiyaan waxa ku dhacda buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi cudurro aan dadka ku dhici jirin markay zinada muujistaan ee sameeyaan ee badiyaan waxa weey waxyaabahan de faraaba cudurrada ku dhacaya kasarra iyo AIDS iyo waxyaabaha inaan aqoon balay qofku fuulaya waxa digo leeyahay nafta ka baxaysa qofkiisa si degdeg ah loo dhimanaya marka weeyaan waxa rasuulku ka sii warramay oo waa marka macaasidu iyo zinadu ay muuqato rasuulku waxa kamida marka miisaanka iyo wixii beega hal nuqsaamiyo oo wax la miisaamayo ama la galaamaynayo ama la bardaaminayo waxay kala iibsanayo iyana waxa ka dhasho oo macaasida noocaas ka ratima waxa la abaara in la isku salido madax maaragtay jawr ah oo dulmi dadka ku xukunta baa lagu salidaya haday zakada dadku bixin waayaan macaasida zakada la bixin waayo waa macsuuin oo kabiira markay bixin waayaan roobka laga reebaa oo ilaahay roobka uma shubo markay zakada bixin waayaan ولولا البهائم لم يمطروا هدي حيوان كما يران كان لو نحينا وحو لو مشبهبا هدي عهدك إلهي بلنك إلهي كرين الدينتي يا عهدك رسولك هدي بريانا إلهي وحو كسلدا عدوا من غير عدو كل يغانين با لو سليدادو بابا كدغو waxay gacanta ku yama ka qaada imsa uhuud bal buriyad uhuud ilaahay kula galay diinta ahayd kula gankeedi markii laga tagay adu baa isku saliday oo wixii fara lagu hayay ee dal haystay oo madu haystay qaatay ورسولك شيء صلوات الله والسلام عليه هذا كتجا إلى شريعة إلى يسكون حكمان أئمته وهو إلى وحكوصل جعل الله بأسهم بينهم لا حد إلى مصائب كذلك ما كان شريعة حكم ويان بفود لسوق ليه يجب أنت قوضة يسكون يتجاهل ما يسكون صور شيء أو عم حكم يشيرين وهو ومركب معاصر دعيسة الرسول كنا نتائج كودي يوحك صباحية إنه شيء بكم تاي وحكم ذي إنه شيء الرسول صلوات الله والسلام عليه إنه موضوع يسكون صباحي سنة marka aad maaragtay ka warramay oo laga tago adduun jacayl iyo maaragtay waxyaabo qiimaha laga tago waxa imanaysa in la idinku salido cadow la idinku salido oo maaragtay si xeero oo kale haraha la idinka maro arrimahaas oo waa taxdiir la idinka bixinayo oo macaasidu ay keenayso oo la doonayo dadku waxay ku liibaanayaan ee badbaadadu ay tahay adduun iyo aakhiraba inay tahay ku dhaqanka diinta ilaahay macaasidu ay ka tagaan xumo ay ka dheeraadaan waa waxyaabaha keenaya ulfada isjeclaynta midnimada isku duubnida kayaan jiro ummadeed in la helo waxa keeni kara toosnaanta walidaalka baa waxa la ka warramay ummadii hore markay ka tageen ku dhaqanka diintooda markaas ay khilaaf urdi markaas ay iskhilaafeen markaas ay isqabsadeen wa min alladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum kuwii nasaarana waxaan ka qaadnay ballan ay diinta ku dhaqmaan fanasu haddan mimma dhukru bi waxay ka tageen
wixii lagu waaniye wax ka mid ah maxaa soo baxay faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa waxaan dhexdooda ku sallidnay colaad iyo isnacayb marka ilaa yowmi alqiyaama wasawfa yuraabihum bima kaanu yasnacuun saa darteed ba waxa weeyaan ummaddu hadday kitaabkeeda iyo ka tagto ku dhaqankiisa oo xaaraantiis ku socoto oo wanaaggii la iman weydo marka waxaa ka mid a waxyaabaha ratimaya in ilaahay dhexdooda isku sallido hadday iyagu isqabsadaan oo madaxa isla galaanna cadowgeeduna wuu ka faa'idaystaa waa waxyaabaha marka waaqaca dhabta yaalla oo loo baahaya marka ummaddu inay ka baraarugto oo ay maaragtay fadhiga ka kacdo loo baahan yahay way iska badan kartaa qodobadaasi insha allah ilaah sayr caaw ku soo gaabinayna nasal allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها